taliyaha ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM General Tigabu Yilma iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka socday howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland. garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo marka uu taliyuhu soo gaaray waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. waxaa intaas kadib loo soo galbiyay aqalka martida ee magaalada Kismaayo halkaas oo uu kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam. kulanka waxa kale oo qayb ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adaha amniga ee Jubbaland. waxaana diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay sidii la iskaga kaashan lahaa nabadgelyada guud iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyadoo la isla soo qaaday in waqtiga lagu guda jiro doorashooyinka ay ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidamada booliska AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo ay ciidamada booliska Jubbaland ka taageeraan sugidda nabadgelyada doorashooyinka. gabagabadii kulanka waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan waxaana uu u akhriyay saxaafadda qaar ka mid ah qodobadii la isku afgartay ee kulanka ay wada yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. sida la socotaan maanta waxaa qabsoomay shir madaxda AMISOM taliyaha guud ee ciidamada AMISOM ku-xigeenadiisa taliyaasha qaybaha sector 2 sector 6 saraakiisha booliska AMISOM iyo dhammaan taliyaasha ciidamada ay ka soo qayb galeen shirkaas oo dhinaca kalena golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo madaxweynaha hogaaminayay. shirkaas ajandihiisa wuxuu ahaa ajande amni buu ahaa ma ahayn mid siyaasadeed. wuxuu ahaa ajandihii amniga oo AMISOM iyo golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ay ka wada shaqeynayeen. qodobo fara badan baa looga dooday, xaalad badan baa la qiimeeyay. inta badan arrimaha amniga waa ogtihiin hadii miidiyaha sax kuma aha, laakiin arrimaha aanu u soo bandhigayna ummadda oo shirka ka soo baxay qodobadan baa ka mid ahaa. waxa lagu heshiiyey amniga guud in la dardar geliyo la dagaalanka argagixisada sidii hore baa la iskaga kaashan jiray, taasoo ka wada qayb qaadanayaan AMISOM, ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ee naga caawin jiray. qodobka labaad waxaa la isla soo qaaday arrimaha doorashooyinka. waxay madaxdii AMISOM cadeeyeen inay ayaga wax faragelin ah ku yeelan horena ugu yeelan kuna yeelan doonin arrimaha doorashada mandate-koodana ayna ka mid ahayn. sidaa awgeed been abuurka propagandada baraha bulshada qabsatay inay tahay wax kama jiraan. marka waxaa lagu heshiiyey in si cad loo beeniyo arrintaas aan bulshadana lagu kicinin, mandate-ka AMISOMna ay ka mid ahayn, AMISOMna ay doorashada ka socoto dowlad goboleedka Jubbaland wax faragelin ah ku yeelanaynin. qodobka saddexaad waxaa lagu heshiiyey in la joogteeyo shirkii amniga ee bilaha ahaa ee ay qaban jirtay dowlad goboleedka golaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland kana soo qayb gali jireen sektarada kala gedisan oo AMISOM iyo saaxiibada kale. shirkaas oo runtii xagga ammaanka horumar weyn iyo gacan ku lahaa bilihii dambena mashquul laga galay in dib loo joogteeyo oo si muhiim ah shirkaas oo wax ku oolaa loo soo celiyo. qodobka afraad waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xil saaro ciidanka booliska Jubbaland iyo ciidamada AMISOM ee booliska AMISOM ee ka howlgala Jubbaland iyo ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland inay arrimaha doorashooyinka ammaankooda iyo maamulistooda ay sameeyaan baa la isla gartay. qodobka shanaad waxaa la isla gartay deegaanada ka baxsan magaalooyinka oo cadowga la isku hor fadhiyo in ay ka wada howlgalaan ciidamada AMISOM, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland oo maaragtay iskaashanaya inay ayagana mandate-koodu yahay inay cadowga ka baxsan magaalooyinka oo furmaha la isku hor fadhiyo ay la dagaalamaan. halka ammaanka magaalooyinkana ay naga gacansiinayaan booliska AMISOM ee ciidanka booliska Jubbaland horeba ay ugu shaqeynayeen inta arrimaha doorashooyinka socdaan booliska AMISOM ay naga gacansiiyaan. qodobadaas lagu heshiiyey
waana la qaybsaday shaqadii waxaana joogtayn doonaa aan bilaabaynaa inaan soo celinno shirkii bilaha ahaa si propagandadana meesha ugu baxdo iskaashi dhab ah oo xagga ammaanka ahna loo meelmariyo ma aha markii ugu horeysay ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo taliyahan ciidamada AMISOM General Tikabu Yilma ay kulmaan iyadoo kal hore booqasho ku yimid magaalada Kismaayo ay si wada jir ah dowlad goboleedka Jubbaland iyo AMISOM isku raaceen in la iska kaashado dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab